السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو وعنو وناكسن انت مقلكيga موقعي تقانا waxaad leeyahay fadlan channelka dadku cusub tahay subscribe ka like to comment ka share fadlan gambaleelkan fursa barnaamijka soo dhignaa oo la socotid waxaan si gudgud rabnaa sheekadii qaybtii labaad nasiib darajacel nuur iyo amal xaafadii markay imaadeen nuur iyo amal isla jiraan duqo way yaabay maxaa yeelay labada ruux meesha halka ruux wiilka lagu soo dilay meesha nuur ma ahayn nuur wuxuu uga badbaaday maamadii caajistay saas uu xeebta uga haray inay meesha ku soo dadaahaan iskaga soo cabeeyaan iyo rabeen markuu nuur uu daahay ayaa waxaa dhacday wiilka kale meesha joogay ayaa nimankii ku qaldameen ay toogteen markuu imaadaan wuu yaabay duqo wuxuu dhahay si camal markii gabadhii duqo imaado waxay tiri abo anaga ma bixin waxaan aan ku mashquulnay nuur hooyadiisa caajistay markaasaa waxay u dhahay see loo qabtay maamada see loo qabtay waa maamada kulley daana way tahay abo way iska caajistay waayahay aaba gudaha gala dharka iska soo bedel imaaw nuurna wuu nala casheenaa waayahay tiri waa imaaday markii cashada ay dhamaysteen oo nuur gabadha dhaweysay ayaa aabihii iyo wiilkii isku noqday war wiilka la diliyaa waayo nuurba maahan markaasaa saas markay u hadlayaan ayaa waxaa maqlaysa amal maqlaysa arrintii dhacday ayaa amal maqashay amal naxtin way yaabtay ayaa waxaa dhacday isku markii wiilkii telefoon u dirtay arrintii ay u sheegtay naftirkiisa wuu yaabay wiilkii amal telefoon ku soo celiyay wuxuu dhahay amalay aniga waxaan kuu sheegayay waa taas macnaha dadka maalqabeynta dhibkaas ay leeyihiin aniga inaan ku diidaa u maleynaysay laakiin kuma diideynin walaashaydiyey amal ayaa jawaab ku soo celisay waxay tiri aniga wax walba la suubiyey kaama haraayo haddii la idila xataa kaama haraayo amal telefonkay jartay way ahaan weysay telefonkay ku celisay ilaa 45 saac ay sheekaysanayeen adii sheekadii ugu dambeyn 8 saac lagu gaaray habeenimo amal ayaa waxay ku ballameen subaxii inay is arkaan nuur subaxii kalluunkii xeebta taga kalluun soo qaadana oo soo tirsanaa oo soo qaadana kalluunka gadgadowgiisa sugaa iyadana way sugaysaa meesha ugu imaaday arrinta meesha ku tashtay nuur wuxuu dhahay amalay xaaladda waa la socotaa si ay xaalad tahayna waa la socotaa bal maxaan samayn karnaa walaashaydii aniga waxba kuma diidani amalay waxay tiri aniga nuurow aniga waxaan kaaga hari karaa in ul idila bes ayaan kaaga hari karaa bes nuur waa tashtay nuur go-aan wuxuu ku gaaray inuu adduunka lagu ka fiirsanaya saddex ay u noqdeen waa maamada iyo aabihii waa yeel ah iyo amal nuur go-aan uu qaatay in isku ag dhintaan arrinta markii nuur saas u wada hadlayaan gabadha walaalkeeda yar saaxiibihiina arrinta maqlaay arrintii wiilka dafuu dhaa wiilka kale dhab kursi dhab markuu kursi arrinta duqi iyo wiilkiya duqiyo ku dhajiyay arrintii duqi waxay ku tashteen iyo wiilkii maamada in oo amal dibadda loo diro amal markii imaaday ayaa aabihii wuxuu dhahaa amalay abow hadda caweyn waaye waxaan rabaa inaan wada hadalno subaxii wada hadlaynaa waayahay tiri abow bas subaxii amal meesha laga rabi in oo duqi la hadlo lalama hadlin amal baabuura loo keenay amal waa la waday iyadoo shoogsan oo oynaysaa la waday elboorka markii la geeyey amal markii elboorka la gelinayay ayaa inta elboorka la geenin ayaa telefoonka xaafadda looga qaadaa telefoonka xaafadda markii loogu qaaday amal laftirkeeda waa yaabtay waxay tiri maxaa dhacay see camal waaye intee la ii wadaa amal markii loo sheegay xaaladda jirto ayay elboorka dhexdiisa ku dhacday amal meesha elboorka loo wada lahaa isbitaalka loo soo qaaday flightkeed saasuu ku kansalmay akhyaarteyda aadka aan jeclahay fadlan channelka dadku cusubtaa subscribe-ka like-ta commentiga share-ta fadlan gabalka fursa barnaamijka soo dhigno ula socotid fadlan videoyaasha la sii share gareeyo
ما شاء الله wax walba horta idinka kor noo qaadi kartiin barnaamijkeena halkaas ayuu ku eg yahay sheekada nasiib daro jecel amal iyo nuur qaybta saddexaadna insha Allah waa idin soo siideen doonaa hadduu alla idmo waa aniga iyo akhyaarteyda idin leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi